وقل القرش وذنقبيا قادوا وادي قالي قري الرمس قود كان يري قادوا وادي قالي قيلوا عن ريركينا قد قادوا وادي قالي قصد دار قولا لفولين قادوا وادي قالي فقير غني اسمه قيل قادوا وادي قالي قفلة درين كل قبن قادوا وادي قالي قربها جوغدون هولك قبن قادوا وادي قالي كبر قلف اي قرون اقيال قادوا وادي قالي قنقر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo kelima ama laba kelima inaan uga hadlo jaadka sidii aan uga hadlay mar ugu horeyso kelimaadka intaanan bilaabin horteed corona yaan laba kelimo isku xigtay aan kaga hadlay marka waxaan isiriyay jaadka waa koronada Soomaalida bal waxaan dhihi karaa waa kaan karada Soomaalida waa jaadka weeyaan marka jaadka meelo badan laga cunaa waxna aniga aan u leeyahay sidaas Itoobiya laga cunaa Kenya laga cunaa Soomaaliya laga cunaa Djibouti laga cunaa Yemen laga cunaa jaadka aan ka hadlayo iyo dhibka bulshada uu leeyahay waa jaadka Soomaalida Jamhuuriyadda Soomaal wixii la dhihi jiray jaadka dhibka uu ku haayay xagga bulshada iyo xagga dhaqaalaha iyo caafimaadka wixii la hadlayaan ugu hadlaya li'annahu jaadka min balad li aakhar waa kala duwan yahay dad jaadka ayaga beerto oo dad kale u soo dhoofiyo haba cunaanee dhibka uu ku keenaya wax kooban weeyaan dad waxay caado u leeyihiin markay ay hawsha ugu culus ay qabanayaan ee jaadka cunaan dadna hawshooda ay ugu fariistaanay sidii ay takhsiin u sameeyaan marka maadaama ay xawaashooda kala duwan yahay dad kastabana culamadooda ayaga u xil saaran dhibka uu ku hayo jaadkooda inay ka hadlaan laakiin ani maanta waxaan ka hadlayaa jaadka Soomaalida Jamhuuriyadda Soomaal min Raas Kabooni ilaa Looya Cadde laga soo yimaado dhibka uu jaadka iyo dhaqaalaha iyo bulshada uu ku hayo baan rabaa in laba kelimo kooban oo kala go'an inaan uga hadlo waxaan saas u leeyahay waxa weeyaan jaadka waxaan aniga soo gaaray ayadoo Soomaaliya oo dhan aan laga cunaynin ee manaadiq qaarkeed ku ag dadka kale ay ka warqabin bacda mudda jaadka tilaabo buu qaaday oo wadankii Soomaaliya cirif iyo ka cirif baa la wada bilaabay in la wada cuno waa maraaxisha uu soo maray waxaa kamid jaadka waxaan soo gaaray bilowgiisii hore aan arki jiray asoo dad gaar ay cunayaan dad waaweyn oo dhaqaale leh ama dad madaxa ee isku ballansanayo ee habeenkaas wada dhafraya saasa jaad loo aqooni jiray waxaa ka dambeysay jaantaa rogan inuu noqdo oo ninka madaxda ahaa iyo ninka xamaaliga ahaa oo maxaan ku yiraahdaa gaariga riixay inay isla si u cunaan waxaan arki jiray jaadka ayadoo ragga gaar uu ku yahay muddo kadib waxaa bilaabatay rag iyo dumar inaba la wada cunabo waa maraaxisha oo macnaha khutuuradiisa say u kordhaysa weeyaan waxaan arki jiray ayadoo jaadka dadka waaweyn gaar ku yihiin waxaad arkaysaa ilmihii yaryaraay oo derbi jiifka ahay ayagoo intay quraac raadsan lahaayeen beddelkeeda jaad raadinayo oo adeeroo qori ii soo tuur dhahay yaa la arkay jaad waxaan arki jirnay Soomaaliya gaar ku yahay la leeyahay waxaanan aragnay Soomaalidii markay dibadda u dhooftay inay yiraahdeen war jaadkana ha noola soo dhoofiyo oo diyaaradii Yurub u socota ama Mareykanba in jaad la sii saaray markii reer galbeedka ku baraarugeen ee jaadki badayna meelo badan laga diiday dadkii Soomaalida Yurub jooga waxay bilaabeen inuu u hijroodaan meelaha wali aan laga diidin ayagoo jaadki daryeelayo ama macnaha mudnaan siinayo marka waxaad dareemaysaa jaadka meesha ku socdo inuu shay caadi ahayn wax sidaas u socdo wax laga aamusi kara inaysan ahayn sidaa daraaddeed inaan kelimo ka niraado macdiratan ila Allahi tabaaraka wa tacaala yaan doonnay haddii Ilaahay yiraahdo ayib marka
aan u nimaado jaadkii waxaa la isku waafaqsan yahay waxyaalaha la yidhaahdo maandooriyaha la yidhaahdo waxay kaga duwan tahay waxyaalaha kale qofkii kama kaaftoomi kara kama joogsan karo waxa markii ay maandooris yihiin oo mukhadiraad ay yihiin waxaa lagu yaqaanaa wax bedelkooda la qaado karoon ayaga ahayn ma jiraan caalamka hadda bal u fiirso ilaahay hanaga badbaadiye waxaan horowiinka la yidhaahdo iyo kookaayiinka iyo xashiishka caalamka ku faafsan ninka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ibtilay oo bahalkaas barto waxa weeyaan naftiisa waa dhaafsanaya lagama kaaftoomi karo marka baljaadkii ma raashiin caadi aba mase maandooniyaha cilaaqa uu la leeyahay ayaa jirto bal annaga aan isweydiino jaadka ani markaan kaaga hadlayo inaan kutub soo akhriyo oo meel aan kasoo sameey ma ah jaadka waxa weeyaan wadankii aniga aan ku dhashay oon ku barbaaray oon ku weynaado wax ku bartay baan habeen iyo maalin arkayay waxaan arkay un baan wax kaaga sheegayaa caaqil iyo qiis inaan cid kale aan waxay ka qoreen aan u akhriyo maba u baahnibo soomaalida dhaqan waxay u leedahay tuuladii uu jooga xadadka ka dhaca iyo wuxuu maanta ka dhagaysanaa b b c da inay ka hadasho waa xadadkii asiga uu joogay uu ka ahaa shaahid buu dhageysanayaa inuu xaggaa ka dhagaysto yacni waa ummad si kale u raran weeyaan marka jaadka in wax laga soo akhriyo uma baahno lianno yowmiyaadkiisa iyo waxa annaga aan u aragnaaba noogaga filanba marka waxaan arkaynaa jaadkii markii la barbar dhigo raashinka caadiga oo la cuno waa ka duwan yahay waxaan arkaynaa qofka jaadka hadduu barto inuu ku dhagan yahay waqti uu leeyahay aan la dhaafisii karin waxoo dhanna laga hormarinayo baan aragnaa taas macnaheedu waxa weeyaan waxay gaalada ku magacaawdo qofka mudmin buu noqday wixii buu daa'imay mudmin waxa weeyaan ma ka kaaftoomi karo raashinka kala fiiri maanta laxoox baad cunay bariis baad ku qadaynay maalin kale baasto maalin muufaad cunay maalin kaytaad cunay maalin misigaad cunay mid aad ku qaydan tahay male midkii kaa hor yimaado waad cunay ilaa jaadka mooye asiga waa inuu noqdaa maxaan ku ihahdaa joogto inuu noqdaa marka calaamo gaar ah baad saaraysa istifhaam waa inaad saartaa marka waxaad arkaysaa jaadka wax lagama bakiilo nin kasta markuu wax gorgorinayo waa iska markuu wax gadanayo waa iska gorgoriyaa jaadka indhala-aana lagu qaata iyadoo la dagaalamayo oo la leeyahay macnaha waxa weeyaan mijintaada yaan lagaaga hormarin haddaadan marduuf helin mijin aad heshid yaa qofku u dhimanaya lacagtana waa iska dhiibay haddayba gacantiisa ku jirto marka waxaan dareemaynaa inuu jaadka ka duwan yahay raashinka caadiga ah oo wax booskiisa buuxi kara inuusan jirin markii annaga aan Soomaali nahay mukhadiraadka kale ka hadli mayno gaalada mukhadiraadka waaweyn oo sida kookaayiinka iyo horowiinka waa lala dagaalamaa xarag iyo xabsi iyo ganaax ayaa la isugu daraa oo waxaa la yidhaha adinka waxaad tihiin mutanaaqidiin liannahu marna waxa weeyaan khamradiina waad bannayseen waana mukhadiraad asigana ma aad kuwaan kalena waad la dagaalamaysiin maxaa u sababe waxay yidhahdeen kuwaan mafcuulkii jirka uu ku samaynaa aada u badan qofkii hadduu caado ka dhigto insaannimada buu ka daadagayaaba aslan xayawaanna uguma tashatid insaanna uguma tashatid hadday bulshada saas isu badasho way wada baaba-aysaa sidaa daraaddeedaan ula dagaalamaynaa marka khamrada way ka duwan tahay oo qofkii si unbaa loola dhaqmi karaa bay leeyihiin ayib dad baa waxay ku doodayaan jaadka maandooriya hadhihinoo qofkii waa kanaa cunayo oo iska degan oo hawshiisa wato oo lacagtiisa wato wixiisa gadanaya waxa weeyaan waa sax qofka hadduu caado ka yeeshto laakiin qof nadiifa oo maskaxdiisa ay fiyowdahay haddaad maalin jaad u keentid awal yoom uu cunayo dhulka waa la wareegaya meel laga soo galay iyo meel laga baxay ma garanayo laakiin markuu isku wado muddo badan ou cuno waxaa laga yaabaa inuu la qabsado sidii khamrada oo kale khamrada hadda fiiri ninkii maanta cabo aan weli hor u cabi jirin wuu ku waalanaya
laakiin ninka dhaqan ay u tahay oo 30 sano soo cunayay asoo cunaya buu gaarigiisa iska wataa asoo cunaya buu muxuu samaynayaa qalid oo qof jiran uu qalayaa wax dhan uu samaynayaa madaxiisa koolo noqday maba saamaynaysa marka taas kama dhigno in khamrada aysan ahayn maandooriya kana sidaas oo kale waa ninka kacadeysha ma nin nadiif oo keen jaadka si maskaxdiisa maxay ku samaynaysaa marka waxa weeyaan jaadki waa nooca marka ugu horeyso aan laga kaaftoomi karin dadka cuno ay wax dhan ka hormarinayaan weeyaan bal aan raadino jaadka wasiilada lagu raadiyo intuu dhibka bulshada u leeyahay aanan gaarin dadka raadinaya dhaqanka ay ku raadinayaan dadka keeno dadka gato siday ku raadinayaan bal aan fiirina marka ugu horeyso waxaanu ognahay ninka xoolo kasta hadduu leeyahay wuxuu ka bilaabayo xoolihiisa qaaligu u hurayo waa jaadka weeyaan hadduu maanta lacagtii ay ka dhammaato waana dhacaysaabo rag badan oo dhaqaalo lahaa suuqa ku jiray markii jaad ay bilaabeen warnoo keena fadhiguu ka kici waaya ilaa wixiisa dhan ay qarxaan wixii markii ay dhammaadaan wuxuu bilaabayaa inuu tugso yiraahdo maanta marduuf qaadi iyo qaad inuu yiraahdo qofkii waa wax la wada ogyahay haddii uu maalmo saas ku moodo dadkii way u diidayaan waxaa ku xigto inuu dadkii asxaabtiisii iyo qaraabadiisi inuu been u sheego duruuf u sheegto caruurta iga baahan naagtii baa iga jiran kayta bay tahay inuu yiraahdo bilaabaya qaar baa waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo fulaan geeri iyo nolol midkeed kuma ogeen hadda gadaashay waa dhintaa lalahayn qofkii isku argagaxaya asiga uma muuqato waxaas iyo cawaaqibteeda maanta keliya wuxuu jaad ku cuno buu raadinaya waa bixinaya waxaa la arkay dad markay jaadkii waayeen intay bahashii janaasada la gelinaya intay isku soo habeeyeen ay markaa mara ku dabooleen meel aan laga aqaanin sidii janaasa masaajidka u geeyeen dadkii markii la dhexgeliya reeruur meydkaana noo yaallo waxaan ku duugnay waxaan ku qaadna ma hayna walaalayaalow noo kaalmee markii lacagtii laga aruursaday qaateen meeshay uga tageen haddii la fayday baalki waxa weeyaan wax kumaba jiraan wax la ogyaho dhaca waay nin baa wuxuu yidhi waxaa inagu dhacday jaad baan haddaan u tafaxiidina aan weynay talaan samayna buu yidhi aan teendha magaalada meel ka baxsan aan ku dhiganno aan ku taaganno nin oo wadaad ahoo suufi ahoo mawliidka si fiican u akhri karana aan soo qalqaalsanno aan annagana codka ugu darna buuri maalmo dhanan meeshaas fadhinay dadkii si tartiib ay noogu imaanayeen buuri maalinkii dambe waxaa dhacday buuri jaadkii aan orod ku waynay maalmihii dambe sidii balkii in noola a keena buuri oon habeen iyo maalin aan cunno annagana sidii wasaa'il cusub baan mar kastaba keenayna dadka aan ku dhagarna buuri ilaa daraja waxaan gaarnay habeenkii markii kowda la gaaro ama saqda dhexa la gaaro inaan nalkii aan noo shidna iyo faynuusti i damino nin aan hore ula ballanayna toosh inuu geeskaas ka soo guliyo meesha ku iftiimiyo dadkii nala fadhiya aan idhaahdo waxaas nuurkii nebiga hadda soo gaaray marka nuurkiina looma baahna inaan idhaahdo dadkii waa dad iska jaahiliina waa jadboonayaan caawa intay keeneen in labalaaba habeen dambe ay keenayaan marka sida lagu raadiya u fiirso yacni waa noocyaalka wax ka mid ah waaye waxoo dhan ma wada ahaa ayib taa markaad tiraahdid bal aan u nimaado jaadkii sida lagu raadiyo waa sidaas qofkii waxaa weeyaan beenaa lagu yaqaana hadalkiisa qiimo ma laha waa isbahdalayaa waxaan jirin buu sheegayaa ilaa duruuf aan jirin ou macnaha yatarabax inuu wax ku raadsado inuu keeno marka aan u laabanno bal usradiisii ninkaa jaadka cunay say usradii asiga uu lahaa caruurtii dumarkii walaalihiis aabbihiis maxaan ku idhaa si ula dhaqmaa bal aan fiirino yacni low faradnaa jadalan nin jaad cuno xaraara ku kacsan tahay hadduu duruuf intuu sheegto nin qaraabadiisa lacag siiyo ma waxay idinla tahay lacagtaas intuu qaado jaadku u baahnaa iska dhaafo ilmihiisa uu u geysta ma idinla tahay jawaabtii waa maya waxaa la ogyahay qabla kulli shay inuu horta jaadka ka bilaabayo
markii uu wixiisa jaad ku cuno ilmihii buu markaa u laabanaya danka ma laha haddii ninkaas maanta jaad uusan cuni lahayn ilmihiisoo duruufaysanna xalay uu ka soo tegi lahaa shilinkii dadka ay ku deeqaan asoon koob shaah ku cabin buu dadkii uu la gaari lahaa laakiin ninkan meesha laga haysta fiiri liannahu maskaxdiisii dhan baa la qabsaday markaasaa waxa weeyaan markuu lacagta gacanta ku dhigo intuu ninkii lacagtii siiyey kaga qarsoono unbuu ku xiran yahay wixiis intuu gatow meel la fadhiisanaya ilmihii ha dhinteeno ha baaba-eena arrin qusaysa ma aha taas waxay ku dhalinaysaa hooyadii ilmaha dhalatay ninkaan oo dhashay in ninkaan ay sugin oy suuqi nafta ka doonto ama ha gado qudaar ama ha gado macnaha dhar oo hudhay ama waxa samaysa maanta dhan inay suuqa taagnaato way ku qasban tahay marka ninkii muxuu samaynayaa ayadii buu suuqu tagaa maanta wax kale hadduu soo waayo ayadii buu suuqu u tagaa leebal maanta waxaan aan ku gata hal mijinkeen haddii ay maxaan ku idhaahdaa ay siisana waa sidii la rabay hadday diidana caawo gurigu ku sugaa xoog buu uga qaadanaya maxaa dhacday dagaalo aan istaagaynin xaaskii liannahu ninkii inuu wax guriga wax ka tara iska dhaafe asigaa culays horla ku noqday wixii maanta dhan qoraxda u taagneed hadduusan suuqa ugu qaadan caawo meesha u fadhiyaa gurigaas marka intuu daa'imi karaa waa dood iyo dagaal joogto ah fi nihaaya guriga waxay imaanaysaa inay u burburo ilmihiina meel ay ku yaacaan hooyadiina ay meeshii ku baaba'do asigana naftiisa uu ku dayacmo marka ninkii hooyadiis ninkii xaaskiis ilmihiisa wax u waaye aabba iyo hooyo walaal iyo adeer abti iyo ayeeyo muxuu ahaaya wuxuu ka yahay usradiisa nin mafquud oo niman jirin ou la mid yahay taas marka waxay keenaysaa qofkii inuu 100 joor ku laabto ee aanan annaga haddii dadkii lagu ibtilay inaan la mujaamalaynin aanan la dhihin wax iska raashiin caadi ah waaye bulshadii wuxuu ku samaynayo qofkii jaad cunay waxa xaalkiisa u dambeeyey mustawaha uu ku leeyahay mujtamacay dhexdiisa ama bulshada bal u fiirso nin tagay weeyaan maanta hadduu ka dhexbaxa ummadda waa lagu mahadina hadduu ku yimaadane waa laga cuudubillaysanaya marka waxa weeyaan dowrka uu ku leeyahay jaadkii waa tahay yacni markii loo fiiriyo usradii aan ka hadlay iyo dariiqada lagu raadiyo caafimaadkii aan u laabanno dadka jaadka cuno laba sibay u cunaan dadna intay calaanjiyaan ay dhoonjiyaan jacayl ay u qabaan asiga iyo maca laftiisa oo dhan dadkaas sanatayn haddii ay cunaan calooshoo dhagaxa isu bedelaa bahalkii intuu isku aruursado iyo madhicirinka ku istaagay waa geed shareed waayo waxaa waaye macnaha macidada ma shiidi karto imisaan aragnay oo markii inta la qalay calooshii oo bahalkii oo qallafay oo isku aruursaday oo sida koolada noqday laga soo dhex saaray marka asiga dhan waa dhaawacmayba xataa macidadii baa istaagaysa maanta dhan wuu matagayaa dadna waxay yeelaan wax la yidhaahdo intay daanka ku aruuriyaan iyay dhacaanka ka dhuunjiyaan caloosha markii loo fiiriyo dhibkeeda waa ka yaryahay kan dhuunjinayo laakiin asna muxuu samaynayaa ilkihii buu ka baabi'inaya waxaa la yidhahdaa xibinta insaanka ugu awood badan waa ilkaha bal jaadkii nin jaad cuni jiray tobanaan maxaan ku idhaahdaa 10 sano 5 sano 6 sano ilkihiisa fiiriya ilkihii oo dhan way daateen markaasuu afka isku soo dumay lianna afka waxaa kala haya waxaa weeyaan waa ilkahaas ku tixan hadday intaa ka soo baxaan inta ka baxaan asiga dhan waa isku dumaa wuxuu ku hadlaya xataa lama fahmay hadda dhakhtartii looga faa'iidaysanaa ilka kalea la gelinaa wax baa lagu kala celcelinaa laakiin fi nihaaya saas le u dambeynaysa qofkii waxay noqonaysaa inuu bahalkii ilkihii uu beelo marka wixii ilkahaasoo laf e sidaa u galay ood arkaysiin xibnihii kale maxay kula tahay oo sidii beerkii oo kale sidii kilihii oo kale sidii wadnihii oo kale sidii cunihii oo kale maxay kula tahay
intuu u gaarsiin karo maadaama ilkii sidaas uu u galay gaala jabkeeda waa qarsataa la yiraahdaa ninka jaadka muddo badan cuna meeluusan ka sheeganaynin malaha laakiin bahalkii hadduu ka istaago waxa weeye intii cudurna way haysaa murugtina way ku imaanaysaa xaraaradina way qabanaysaa inuu isdilo ku dhowaanaya badbaado wuxuu u arkaa maalin kasta inuu bahalkii dul taagnaado biay wasiila waxuu soo dhaqay iyo waxuu soo dhacay iyo wixii kaleba ha noqotay marka taas waxaa ka daran haddii qofkii ay caafimaadkiisi sidaas noqdeen waxaa la ogyahay xibnihii kalena wuu ka takhallusay sidii uu abshir bacadle hore u sheegay raxmatullaahi calayh waxaa la yidhi ninka hadduu jaadka badsado raganimadiisa xataa meesha way ka baxaysaa waatii hadalkiisii intaan ka xasuusto qalbi qooqan iyo qowra aan wax tarin qaadow adaa iskala buuri qalbi qooqan iyo qowra wax tarin qaadow adaa leh marka macnaha waxa weeyaan qofkii wuu dareemayaa inay shahwo u leeyahay laakiin ficil haddii loo laabto wax ma qaban karo wax jira ma aha macdan qubato iyo hal maxay ahayd hadalkiisii kale macnaha waxa weeyaan macdantii oo iska qubato oo howlna aan la qabanayn qaadooda iskala buur waxa weeyaan raganimadii baa maqan caafimaadkii baa maqan qiimihii baa maqan wixii oo dhan baa wada tegay markaasaa ninkii waxa weeye waa sii daba jooga marka qofkii waxay u baahan tahay cid ka xoraysu u baahan yahay ummaddii marka in laga wacyigeliyo oo qoladii dhakhaatiirtii dadkii culamadii dowladdii in laysaga kaalmaysto iyay u baahan tahay waa markii la yidhaahdo waa caafimaadkii keligiis iyo usradii uu intuu dhib u keeni karo keli ah markii aan u nimaado caqliga dhibka uu keeni karo dhaqaalaha dhibka uu keeni karo diintii wuxuu ay ka qabto wax la koobi karo maaha kelimadeenna labaad baan taasna insha allahu tacaala aan ku soo qaadi doona haddii ilaah yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah sidii qamarjo waxuu quu darree qaadoo adeegaale qise yaab lahoy qarinayaan qaadoo adeegaale allahayow maxaa naga qabsaday qaadoo adeegaale quful kugu go'oon furuhu qaban qaadoo adeegaale qaroonsiibadoon qiraa lahayn qaadoo adeegaale jirhkoo qaasha dhimirkoo qalqala qaadoo adeegaale qarni guurka qoonkan ku dhacay qaadoo adeegaale salaadaha dib qaba ama qalle qaadoo adeegaale qoryo aad ruugtay dumar kuu qabsada qaadoo adeegaale haqadarin qaraaba iyo ahal qaadoo adeegaale afku wuxuu yanii qaban kareen qaadoo adeegaale qosol iyo qamuunya isku xiga qaadoo adeegaale quraysh gabara waxa loo qawada qaadoo adeegaale qatar caafimaadoo qarsoon qaadoo adeegaale qaadicu salaadnima asala qaadoo adeegaale isla qabweyni aan sii qodnayn qaadoo adeegaale quful kugu go'oon furuhu qaban qaadoo adeegaale waxaad shalayta qabatoo qarriban qaadoo adeegaale qunsac balaadka lagu qiimo dhaca qaadoo adeegaale waquutul awliya kidbiya qaadoo adeegaale wax nin weyni qaadoo qawada qaadoo adeegaale qalbi qooqan qooraan wax tarin qaadoo adeegaale macdan qubata hawshoo qabya qaadoo adeegaale qardareeya kaadida qulquli qaadoo adeegaale qubays laga wahsada iyo qurmoon qaadoo adeegaale qayrkaa shaxaad hana qajilin qaadoo adeegaale qofka hoose laba qori ka tuuqaadoo adeegaale faqiir qani ismoodoo qayila qaadoo adeegaale dubaab lagu qarwo kugu qulqula qaadoo adeegaale bisad ku quustay dabadeeda qaba qaadoo adeegaale qarjabsa intuu inay kuu tira qaadoo adeegaale kugu quruntay qaybtii dhinnayd qaadoo adeegaale qannaaskiya waswaaska qarsoon qaadoo adeegaale qabri ka hor qandhaan laga biskoon qaadoo adeegaale qasamtu qayb daroogada ka mida qaadoo adeegaale qaadirada subixii ku qaban qaadoo adeegaale qosol beenahoo qararacla qaadoo adeegaale qof doorsoomay sida qaac madow qaadoo adeegaale qadaad riix marqaba oo qaniin qaadoo adeegaale boqolkaa qisoo wada qubxiya qaadoo adeegaale ilaahay hanaaga kaa qabtee qayba heeraweyn ilaahay hanaaga kaa qabtee qayba heeraweyn